ninkani waa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin kahor inta aysan dunidu magaciisa baran sarkaal KGB ah oo aan la aqoon kaasoo markii dambe noqday mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu caansan dunida tan iyo markii ugu horreysay la doortay Putin waxa uu dhisayay sumcad ah in dunidu ka qaadato sawir ah inuu yahay nin rageed la bixiniyooda oo heebadu qanjaha joogto laakiin marka laga tago sawirrada iyo muuqaalada uu ku soo bandhigo xooggiisa waxaa jira sawir kale oo ka kooban qisooyin iyo taariikho noloshiisa ah oo inta badan ku celceliyo marka saxaafadda laga wareysto haddaba muuqaalkan waxaan idinkugula wadaagaynaa 3 sheeko oo Putin marar badan ka xuso noloshiisii ka hor intuusan Kremlinka degin Vladimir Putin wuxuu ku dhashay 1952 magaalada Leningrad oo hadda ah St. Petersburg magaalo ay mahadooyin weyn gaarsiisay go'doomintii Naasiga ee 872 maalmood socotay intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka boqolaal kun ayaa ku dhimatay go'doomintaas waxaana ka mid ahaa walaalkii ka weynaa Putin wuxuu sheegay in sidoo kale waalidkiis si darqi ah uga soo badbaadeen halkaas halkan ayuu ku koray guri kaam ah oo ciriiri ah xilliga qaboobaha aanan biyo kulul lahayn musqushana la wadaago waxay ahayd nolol aad u adag oo ciriiri ah run ahaanna Putin-kii yaraa qudhiisu way ka muuqatay nolosha adag aadna u dagaal badnaa inta badan carruurnimadiis waxay ku koobneed barxadda la wadaago ee u dhaxaysa dhismayaasha guriga kaam oo ka ah ay deganayeen cashar dhaqameedka uu gurigaas ka bartay wuxuu ahaa inaan marnaba dib loo gunan xitaa haddii aad ka jab yar tahay wiilasha kale ee guriga degan wuxuu bilaabay inuu barto legdanka iyo ciyaarta judooga loo yaqaan markii dambena wuxuu ka gaaray heerka suunka madow oo ah meesha u sarreysa laakiin carruurnimadiisa waxaa jirta qiso gaar ah oo uu jecel yahay inuu ka sheekeeyo oo ku saabsan siduu dooliga u eryan jiray carruurnimadiisii jiirka ayuu eryan jiray isagoo ciyaaraya madadaalo ka raadinaya ilaa uu maalin maalmaha ka mida jiir ku eryaday qol aan lahayn meel laga baxo markii uu jiirkaasi uu waayay meel kale oo u furan waxa uu ku soo jeestay dhinacii Putin isaga oo diyaar u ahaa inuu wajaho taasina Putin way cabsi gelisay waxaana ay ku kaliftay inuu isagu noqdo kii la eryanayay buugga Fast Person oo ah buug ka kooban wareysyada Putin oo la daabacay sanadkii uu madaxweynaha noqday wuxuu ku sheegay inuu dhacdadan ka helay 10 lama ilaawaan ah Работать в органах безопасности мне действительно хотелось где-то. У меня возникло такое желание где-то в школе еще. Но как и у многих молодых людей. markii uu dhalinyarada ahaa wuxuu sheegay inuu xitaa tagay xaruntoodii Leningrad isagoo shaqo weydiisanaya laakiin wuxuu u sheegeen inuu jaamacadda aado oo sharciga barto halkaas ayaana markii dambe laga qoray uguma biirin KGB sabab la xiriirta inuu la dhacsana mabda'ooda balse waxay ahaayeen ciddii ugu itaalka roonayd ee kooxaysiga uu doonayay siin karta wuxuu sheegay shaqadiisa KGB ee ahayd ururinta xog ku saabsan mucaaradka siyaasadeed isagoo ogaanaya yaa maxay sameynaya iyo sidee ayay u sameynayaan maadaama uu si fiican ugu hadli jiray Jarmalka waxaa 1985 loo diray Dresden oo ku taala Jarmalka bari waqtigaas midowgii Sofiyeeti weli wuxuu saameyn aad u weyn ku lahaa bariga Yurub Putin wuxuu ku sugnaa Dresden markii mudaharaadyada waaweyn ay ku fidayeen Jarmalka bari sanadkii 1989 kuwaas oo horseeday dhicistii derbiga Berlin bishii November isla bishii xigtay sanadkaas dadweyne ayaa xoog u galay xaruntii Dresden ee ay lahaayeen istaasiyiinta booliiskii sirta ahaa ee Jarmalka bari ee laga cabsan jiray shacabka ayaa ujeedkoodu ahaa inay ka hortagaan burburinta faylasha iyo caddeemaha xadgudubyadii sirdoonkan ay geysan jireen xilligii nidaamku sii dhacayay buugga Fast Person wuxuu ku xusay sida dadkii careysnaa ee galay dhismaha Stacey ay ugu soo jeesteen dhismaha KGB oo wadada dhinaceeda kale ku yaalay halkaas oo Putin ka daawanayay dhacdada maalinta ay haddaba dhacdadaasi dhacayso waxa uu ku jiray gudaha xarunta KGB markaasna waxaa bannaanka joogay dadka Jarmalka bari ka soo jeeda oo iyagu u arkayay Sofiyeetka gaar ahaanna kooxda la yidhaahdo KGB in ay iyagu yihiin kuwii dulminayay Putin ayaa bannaanka ugu soo baxay dadkii oo ka hor yimid waxaana uu yidhi fiiriya gudaha waxaa ku jira askar badan oo qoryo wadata haddii aad soo gashaan waxay ku khasbanaan doonaan in ay rasaas idinku furaan waana ay idin toogan doonaan taasi waxay kooxda ku qancisay inay dib uga noqdaan laakiin isagoo ka baqaya rabshado kale inay dhacaan Putin wuxuu maalintaas Moscow ka codsaday gurmad kale KGB waxa ay wacday xeradii Sofiyeetka ee ugu weynayd si argagax leh iyaga oo dad badanna halkaasi ay xilligaasi joogeen waa inaad ciidamo noo soo dirtaan
ayaa ay yidhaahdeen waxaan u baahannahay amar ka yimaada dhinaca Moscow laakiin waxay noqotay mid aamusan. inkasta oo midowgii Sofiyeeti uu burburay 1991 Putin wuxuu sheegay inuu dhab ahaan dareemay in maalintaas markii uu waayay gurmadka uu dhammaaday casrigii Sofiyeetku taasna raad weyn ayay ku reebtay. waxaan u malaynayaa in waayo aragnimada dhacdadii Dresden ay qaabaysay ku dheganaantiisa xoogga dawladda, xakamaynta bulshada iyo ka hortagga fowdada. After Dresden, Putin stayed on the KGB's books, but he didn't have an official posting. So he returned to Leningrad, started a PhD in mining economics, and says in his ghostwritten autobiography he even considered a career in academia. inuu xitaa ka fakiray inuu iska noqdo macallin. laakiin macallinkiisii hore ee sharciga Anatoly Sobchak oo waagaas noqday duqa magaalada Leningrad ayaa u soo bandhigay shaqo noloshiisa bedeshay. sidaas ayuuna ku soo galay dunida siyaasadda. inkastoo aanan aad loo aqoon waagaas, haddana wuxuu sanado badan garab fadhiyay Sobchak. wuxuu ahaa mar uu barbar socdo iyo mar uu barbar fadhiyo. waqtigaas cidina fiiro gaar ah ma siineen oo wuxuu kaliya ahaa nin jaakad bunni ah xiran. dhab ahaantii sannadihii 1990-meeyadii ee fawdada badnaa ayay ahayd xilligii ugu weynaa ee uu helay hibooyinkiisa dhabta ah. hibooyinkaasi waxay asal ahaan ahaayeen in uu ku fiicnaa noqoshada ninka qof walba uu jecel yahay in uu dirsado howlaha qarsoon. waxa uu ahaa ku-xigeenka qof walba uu jecel yahay, ninka wax walba si aan muuqan u dhammeeya. wuxuu sheegay in waqtigaas uu Sobchak la joogay ahaa mid ka mid ah sanadihii ugu qaabeynta badnaa xirfadiisa. waa qiso uu Putin ku celceliyo, wuxuuna si soo noqnoqoto uga dhigaa mid ka sarreysa kuwa kale. Sobchak wuxuu ku qabay kalsooni shakhsiyadeed oo heerkaas ah ilaa uu siiyey saxiixa shakhsiga ah oo uu dunihiisa ku fushan jiray. sidaa darteed waxaa loo fasaxay inuu ku dhaqmo magaca duqa magaalada. waayo aragnimadaasi waxay qaabaysay aragtida Putin ee awoodda inuu u arkay wax shakhsi ah, daacadnimo ku dhisan oo aan la kala qaybin karin. casharkaasna wuxuu xitaa ku dhaqmayay muddo dheer kadib markii sanadihii Sobchak ay dhammaadeen. ilaa maanta weli waxaa ku xeeran dad badan oo uu la kulmay xilligii uu ka shaqaynayay xafiiska duqa magaalada. kadib markii Sobchak ku guuldareystay dib u doorasho kale, Putin wuxuu u guuray Moscow si uu ugu biiro Kremlinka sanadihii ugu dambeeyay ee maamulka madaxweyne Boris Yeltsin. si degdeg ah ayuu kursi u dhiibay, xilalkan ugu dallacay. 1998 wuxuu noqday madaxa hay'adda cusub ee sirdoonka iyo ammaanka ee FSB, sanad kadibna ra'iisul wasaare. dadkii ku hareeraysnaa Yeltsin waxa ay bilaabeen in ay raadiyaan beddel kale, qof kale oo ay u malaynayaan in la xakamayn karo isla markaana waxtar yeelan kara. Yeltsin's inner circle ensured Putin took charge when Yeltsin stepped down. But to most Russians, he was still a mystery man. Putin wuxuu u ahaa nin aanan la aqoon. Putin runtii si fudud ugama dhaadhicin mala awaalka dadweynaha. markii uu noqday ra'iisul wasaaraha kadibna madaxweynaha, waxaa jirtay dareen ah waa kuma ninkani. taasi dabcan waxay Putin u ahayd faa'iido weyn, sababtoo ah waxay ahayd tii ka dhigtay inuu fursad u haysto noqoshada nin xalay dhalay ka ah siyaasadda. boggaas maran ayuu Putin ku dhistay sawirka hogaamiyaha aan maanta naqaano, nin ka soo kacay luqyada Leningrad, hayaankiisii nololeedna keenay xafiiska ugu sarreeya Ruushka. 25 sano ee uu dalka gacanta ku hayay wuxuu noqday mid awoodiisu sii baahayso oo talada si kale tirisnimo ah u adeegsanaya. waxaan u malaynayaa in sanadihii ka horreeyay Kremlinka ay wax badan nooga sheegayaan dareenkiisa shaqo iyo sida uu u dhaqmo, balse sanadahaas ma aha wax si buuxda u go'aaminaya dhab ahaan qofka uu yahay. taariikh nololeedkiisa keliya anigu uma malaynayo inay sharaxayso bulshooyinka Putin ee xirfadiisa ah. waqtigiisa xukunka waxaa sidoo kale qaabeeyay dagaallo, dhibaatooyin dhaqaale iyo isku dhacyo soo noqnoqday oo uu la galay reer galbeedka. laakiin sheekooyinka uu isagu ka sheekeeyo badanaa waxaan ka heli karnaa ilaaha ku saabsan fikirka maskaxdiisa, carruurnimada Putin ee Leningrad, tababarkiisii KGB, dhacdooyinkii Dresden, foodadii 1990-meeyadii. dhammaantood waxay Putin ku abuureen dareenno mahadhooyin ah oo ku saabsan nugulaanshaha, daacadnimada iyo khataraha burburka dowladnimadu keento.